بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جالية إنجليزكا kasoo jeedo maamul goboleedka Hirshabeelle qabanqaabiyaasha iyo jaaliyadaha kale ee ka socdo maamul goboleedyada dalka baada saxaafadda marti sharafka guud ahaan waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo jaaliyadda ka soo jeedo Hirshabeelle ee Ingiriiska dadaalka ay muujiyeen waqtigooda qaaliga ahay iyo wax dheefkooda ay isku dareen ay go'aansadeen in maamulkan cusub ee Urdunka iyo maaragtay madaxdii la doortay inay u xaflad u dhigaan oo ku taageerayaan kuna soo dhaweynayaan maamulka maaragtay cusub ee ka curtay Hirshabeelle waxaan rabaa inaan idhaahdo mahad oo idinka gaarto waa dadaasheen annagana waxayna dareensiinaysaa baahida loo qabay in maamul loo helo labadan gobol ee dadkooda walaalaha yihiin ee diriska yihiin in maamul midaysan loo helo maaragtay siday u dareemayso ummadda ku nool dalka gudihiisa ama labada gobol ku nooleeday idinkuna inaad u dareemaysiin inoo cadaynahe waxaan rabaa inaan idhaahdo mahad oo idinka gaarto waa dadaasheen insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo labadii gobol way midoobeen maamul midaysanayna yeesheen insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana xaqiiqa wax badana uga maqnaay oo xaq ah ay leeyihiin maaragtay inay helaanna ay maaragtay muhiimaheeday ay heli doonaan insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo idinkana maado idinka gaarto dadaalkiina garab istaagiina hadday hore aheedna waa garab taagneedeen maamulka dhisidiisii muddada dheer qaatay 9 bilood ama maaragtay 10 bilood loo fadhiyay in maaragtay maamul midaysan loo helo labadan gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaan leeyahay dadaalkiina horena maado idinka gaarto midka haddaana maado idinka gaartaan leeyahay cid kasta gacan ka geysatay in maamulka dhismana waxaan leenahay maado ka gaarto waxaan rabaa inaan maaragtay si gaar ah uga hadlo haddii maaragtay maamul la helay waxaa loo baahan yahay in la helo maaragtay waxqabad 4 sano soo socota insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa laydinka rabaa waxaa loo baahan yahay aqoontiina waxaa loo baahan yahay waayo aragnimadiina waxaa loo baahan yahay in sida gobolada kaleetood ee dalka maaragtay dadka dibadaha jooga jaaliyadda iyagu soo noqdeen dadaalka badan u muujiyeen insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo idinkuna aad maaragtay timaadiin ee aad hadday tahay aqoonti kula soo noqotiin hadday tahay waayo aragnimada aad kula soo noqotiin lana maalgelsho gobolka labada gobol insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan rajaynaynaa waa gobolada dalka Soomaaliya ama aan hubnaa inay yihiin gobolada dalka Soomaaliya ugu khayraadka badan hadday tahay baddi hadday tahay webigi iyo hadday tahay xoolihii iyo beerihii intaba ilaahay yaa ku manaystay insha allah haddii la yiraahdo inaad qayb ka qaadan doontiin dibadhoski dalka insha allah haddii la raalli ka noqdo state-kina insha allah waana qaadiyay waana rajaynaynaa inaad maaragtay tala badan ka yeelan doontiin annagana waxaan ballan qaadaynaa haddii la raalli ka noqdo ummadda Hirshabeelle inaan cadaalad iyo sinaan aan ku hogaami doono insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo anni aan u dhagan nuglaa doono cid kasta ee tala soo jeediso cid kasta ee waxqabad soo maaragtay la timaadana inaan soo dhaweynaa naga go'an haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahad celinayaa jaaliyadda Hirshabeelle ee xafladan soo qabanqaabisa waxaan leeyahay mahad oo idinka gaarto waa dadaasheen insha allah haddii ilaahay yiraahdo taladiinana wax badanaan maaragtay ka qaadan doonaa insha allah manihin dad iyaga ushooda meel uga jaran tahay oo go'aanka annaga la dhihi doonee talada ummadaan maaragtay insha allah haddii ilaahay yiraahdo la u qaybi doonaa wax baan ka qaadan doonaa taladooda fikirkiinuna muhiim oo noo yahay insha allah taladiina nagu biiriya aqoontiina ku biiriya maaragtay ummadda Hirshabeelle insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waana wada guuleysanaynaa guulaha noo bilaaban insha allah 4 sano soo socota markay dhamaatana waxaan rajaynaynaa inay wax muuqdo noo qabsoomaan oo caalamka iyo adduunka dhan la yiraahdo nacam Hirshabeelle wax baa u qabsoomay isbedel dhabaha ka dhacay hadday horumarki tahay hadday nabadgelyada tahay dhinac waliba isbedel ka jira in la yiraahdo rajaynaynaa taladiinuna muhiim ay noqotaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo fikirkiinana waa rajaynaynaa inaad nagu biiri doontiin meesha qaldana aad dhihi doontiin war meeshaas laga saxo meeshii toosan aad dhihi doontiin war waa toosantaa meeshaas ha lagula sii dhawaado oo dadaalka la sii laba jibaaro inaad dhihi doontiin aan rajaynaynaa aad iyo aad u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh